warqadaada ka soo horreysay aad ku taageertay Axmed Madoobe hadda maxaad sheegi intuu baad ku celin Soomaa madaxweynaad rabtaa waa isaga iyo ragga kale la midka ah madaxweynihii hore Xasan Sheekh kamid yahay iyo kuwa kale faraha badan ee maxaan ku yiraahdaa badii iyo dhulkii cirkiiba hore u gatay waxaad rabtaan oo Soomaaliya rabaa inaan u sheego madaxweynayaal bay rabaan 20 inay u tartamaan waana qayr mas'uuliyad hadda ku shaqeynayaan inay doorasho aan sax ahayn ay dhahaan waa sax ayaguna taas oo kale rabaan inay nagu sameeyaan waxaan rabaa inaan u soo jeediyo odayaashaas Kismaayo waad iman kartaan waa magaalo Soomaaliya laakiin sida aad ku imaanaysaa si ka duwan baa la rabaa inaad ku timaadaan haddaad odayaal tihiin idinkoo odayaal inaad timaadaan baa la idinka rabaa haddaad maxaan ku idhaahdaa si kale oo qaraabo salaan u imaanaysaan inaad u timaadaan laakiin siyaasadaha iyo waxa aad la wareegaysaan farmaajo doorasho idinkaga adkaaday intuu idin la tartamo doorasho idinkaga adkaaday mana idinka baryay 4 sano inuu xukumo meesha waana dhamaatay suga hal waalanaysa shacabka hal la kiciyo carruurta hal la kiciyana waa waxa aad ku hadlaysaan baawarka aad hadda ka hadlaysaan waa baawar baagiisa dambe oo qabiil daaranya waxa sida Soomaaliya kama shaqeeyaan shacabkana ma marna habaabin kartaa waxa idin soo jeedinaynaa hatta timaadana waxba soo kordhinaysaan benzin u baa ku soo shubaysaan haddaydan imaaninna waxba soo kordhinaysaan laakiin sharaftiina maanta meel bay u dhacday dhulkay ku dhacday waxa laga yaabaa anigu rag badan oo aan saaxiib ahayn oo aan taageeri lahayn inay ku jiraan laakiin maanta haddayba sharci darro taageerayaan soo madax igu noqon ninkaas oo barito oo maartay xil ugu dhiiban shacabka Soomaaliyeed oo arko marxaati ka noqdo Jubbaland dadkii siyaasad iyo shacab iyo odayaal ku filan baa joogay in arintooda xaliyaan waxa kharibayana wuxuu fargelintiina banaanka mar walba fargelinta banaankana waxaan u baahanahay in ay dib uga istaagto Jubbaland inta waxaan ku darayaa annaga isbedel doon ahaan maar day one maalintii ugu horeysay ilaa hadda waxaan u qaylinayna war waxaan waa la wada leeyahay la joojiyo miis la isugu yimaado hal la wada hadlo doorasho la wada leeyahay hal la qabto intiiba waa la diiday dhagaha laga fariistay waxaan sheegnay doorasho la wada leeyahay haday dhici weydo doorasho la kala leeyahay inay dhici doonto waa dhacday caleema saar la wada leeyahay haduu dhici waayo mid la kala leeyahay waa dhici Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh iyo ragga kale la midka idinkoo Kismaayo jooga ama Kismaayo dhibaato inaad ka abuurtaan ha u imaanina waxaan rabaa inaan beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Jubbaland u sheego wixii ka yimaada ayaga qaadi doona mas'uuliyadeeda Jubbaland bay isku dirayaan si kala fogeynayaan baasin ku sii shubayaan maxaan ku dhahay siyaasadda 20 ay rabaan inay u isticmaalaan waxaan u soo jeedinayaa nimankaas odayaasha saaxiibadaya haday wanaag u imaanayaan dariiqa wanaaga ha soo maraan haday rabaan fawdana Jubbaland fawdo uma baahna in ku filan bay haysataa waxa kale soo haray waxay tahay 20 baad u socotaan doorasho 20 hadii doorashada Axmed Maxamed Islaan halkaan uu ku afduubay aad taageertaan Maxamed Farmaajo doorashadaas oo kale u qabsan doona idinkoo taagtaagan oo xamar taagan buu 4 sano kale madaxweyne noqon doona ilaa idinka bilaabay